intii aan waday channelka wax ka baro waa ilaa 2016 waxaan boqolaal kun oo qof ka caawiyay inay si fudud uga soo kabtaan oo ay uga bogsadaan xidhiidhadoodii jacayl ee burburay. mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dadka ka hor istaaga inay xidhiidh ay lahaayeen ka bogsadaan waa iyagoo weli rajo ka qaba in xidhiidhkaasi uu maalin dib u soo noqon doono. marka uu qofku rajo ka qabo in jacaylkiisii hore uu dib ugu soo noqon doonana qofka maskaxdiisu marna ma ilowdo inay ka bogsato xidhiidhkaas, sababtoo ah maskaxdiisaasi waxay aaminsan tahay in laga yaabo in qofkaasi uu dib ugu soo noqdo oo ay dib u hesho. marar badan waxay fariimo iga soo gaaraan dad ii sheega inay xiiseynayaan inay dib u helaan qofkii ay hore xidhiidhka ula lahaayeen. taasina waxay ii caddaysaa in qofkaasi aanu weli ka bogsan xidhiidh uu hore u lahaa oo uu daba socdo rajana ka sugayo qof waqti hore ka tashaday oon isagu rajaynayn inuu dib ugu soo noqdo. taasina waa sababta aan u go'aansaday inaan muuqaalkan kuu soo bandhigo si aan kuugu sheego kugulana wadaago calaamadaha ku tusaya in qofkii aad hore xidhiidhka ula lahayd uu kaa tashaday isla markaana aanu dan iyo heella kaa lahayn, si aad adiguna rajadan ku daashatay meel iskaga dhigto horena uga bogsato jacaylka. calaamadaha lagu garto in jacaylkaagii hore uu kaa tashaday oo aanu dib kuugu soo noqonayn. kow, qofkoo kuu fiicnaada balse kaa fogaada. markuu qof kale ka xiisa dhaco badanaa wuxuu noqdaa qof u fiican qofka balse wuu ka fogaadaa. qofku wuxuu kuugu fiicnaanayaa sababtoo ah ma danaynayo inuu waxyeello ku gaadhsiiyo, waxaanu kaaga fogaanayaa sababtoo ah ma xiisaynayo mana danaynayo inuu kugu soo dhowaado. laba, qofkoo markaad baraha bulshada ku wada hadlaysaan waqti dambe kuu soo jawaaba. dadka qaar ayaa si ula kac ah aan ugu soo jawaabin dadka kale si dhaqso ah si ay ugu caddeeyaan inaanay danaynin. iyadoo sidaas ah haddii haddana qofkii aad hore xidhiidhka u wada lahaydeen uu si joogto ah u sameeyo ficiladan, ogow in qofka agtiisa aanad wax micno ah ka lahayn. saddex, qofkoon hadalka kuu bilaabin. haddii aad si guud u eegto haddii uu qof xiisaynayo qof kale badanaa qofkaasi wuxuu heli doonaa waxyaabo uu hadalka ugu bilaabo qofka uu xiisaynayo. haddii uu qofku si fiican kuugu jawaabo balse aanu isagu marnaba hadalka kuu bilaabin ama aanu su'aalo badan ku weydiin, taasi waxay caddayn cad u tahay in qofkani uu jacaylkaagii ka bogsaday kaana maarmay wax xiiso ahna aanu ku hayn. afar, qofkoon isku dayin inuu kuu caddeeyo inuu faraxsan yahay. marka uu qofku weli ku danaynayo wuxuu isku dayi doonaa inuu sameeyo waxyaabo kala duwan oo uu kugu caddaynayo inuu faraxsan yahay, sida isagoo qofkaasi soo bandhiga sawirro uu saaxiibadii kula jiro ama sawirro uu qofka cusub ee uu xidhiidhka la yeeshay kula jiro. laakiin haddii aad aragto qofkoo u muuqda inaanu danaynayn inuu soo bandhigo farxadda, taasi waxay badanaa ku tusaysaa in qofkaasi uu niyaddiisa kaa saaray isla markaana aanu ku danaynayn. shan, qofkoon taleefanka mar kasta kaa qaban. marka qofka aanad wax micnaha u samaynayn ee aanu dan kaa lahayn badanaa wuxuu kuu jawaabi doonaa markuu waqti hayo, wicistaadana wuu iska indhatiri doonaa markuu rabo ama mararkuu mashquulsan yahay. haddii qofkii aad xidhiidh kala lahayd uu mararka qaarna taleefanka kaa qabto mararka qaarna uu kaa qaban waayo oo aanu xataa kugu soo celin, ogow inaanu wax dan iyo xiise ah ku hayn. lix, calaamadaha jidhkiisa ee ku caddaynaya xiiso la'aanta. haddii qofkii aad hore xidhiidhka ula lahayd uu wax badan hamaamsado markaad la joogto ama aanu toos kuu soo eegin oo uu wejiga kaa leexiyo amaba jawaabo gaagaaban uu ku siiyo, waxaa aad u suurtagal ah in qofka aad hore xidhiidhka ula lahayd aanu gebi ahaanba hadda ku xiisaynayn. haddaba maxaa kula gudboon oo ay tahay inaad samayso haddii aad xaqiiqsatay in qofkii aad hore xidhiidhka ula lahayd uu kaa tashaday oo aanu dib kuugu soo noqonayn? waxaan ku leeyahay hambalyo, sababtoo ah waxaad aad ugu dhowdahay inaad qofkaa jacaylkiisii iyo xidhiidhkiisiiba aad ka bogsato. waxa keliya ee aad hadda u baahan tahay waa inaad ballaadhiso xidhiidhkaaga bulsheed, noloshaadii bulsheed iyo dad dhexgalkaagiina aad sidoodii hore u soo celiso si aad naftaada ugu diyaariso inaad qof cusub la kulanto. haddii aad aaminsan tahay in qofka aad xidhiidh kala lahayd uu weli rajo kaa qabo oo aanu kaa wada tashan oo aad welina sii xiisaynayso xidhiidhka, waxaa kuu fiican inaad qofkaa si toos ah u waajahdo, aanad weydiiso inuu xidhiidhkiina weli danaynayo iyo in kale. haddii uu qofkaasi weli danaynayo xidhiidhkiina aad ayay ugu adkaanaysaa inuu maya ku yidhaa haddii aad ka codsato inaad xidhiidhkiina soo celisaan. waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. haddii aad ka heshay ha iloobin inaad like saarto lana sii wadaagto asxaabtaada. sidoo kale subscribe saar channelka haddii aanad hore subscribe u saarin. waa anigoo Cabdirasaaq Faarax ah, tan iyo kulankeena kan xiga. amaan Allah.